إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، سيدة قريب الله الشيء موضوع درسنا إن شاء الله تعالى عاوة وحويان أسباب سعة الرزق، أسباب تكينته رزق أما أرساق ذا إن روح الله واسعيه وأن لو عيرين ومحاضرها بين دويد عن جوهانس بيكتشيدي ولا لونا يتش على ستين إن العاورة كبطة وكتشورة munaasabadana waad garanaysaana waxa weeye xilligan waa xilliga taqriiban dad badan oo idinka mid ah ay ku mashquulsan yihiin siday risq ku heli lahaayeen. waxaana la dhihi karaa dee waa muhiimadii aad u timaadeen South Africa u timaadeen ilaan janno maydaan u soo raadsanin sooma meeshan janno maydaan u imaan laakiin waxaad u soo raadsateen bal waxoogaa caysha in laga helo yay muhiimaddu ahayd. mawduucaasi markaa wuxuu ku saabsan yahay bal in jidad badan aan idin tuso oo keeni kara waxaad raadinaysaan inaad heshaan, iyadoo dadka intooda badan laga yaabo inay yaqaanaan uun hal jid ama hal sabab ama dhowr sababood hadduu dadaalo oo ay ka qarsoon yihiin asbaab fara badan ama jidad fara badan oo ku yaqaano ka gaaban ama ka fudud oo waxa la raadinayo lagu gaadhi karo. arrimaha marka inaan tusaalayno weeyaan ujeedadu. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu wixii sawaabana waafajiyo, wixii zalal iyo khata'ana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naga ilaaliyo. intaanan asbaabta gelin waxaan jeclahay inaan dhowr qodob ama dhowr qaacido aan ka hormariyo. qodobka koobaadi waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala addoommada wuxuu u qaybiyey risiqa sida akhlaaqda ugu qaybiyey ayuu risiqana ugu qaybiyey. waana qorshe iyo qaybin iyo qoondayn horraysay oo samaawaadka iyo dhulalka abuuristooda xataa ka horraysay, sida xadiidkii nabiga sal alla alay wasallam fi saxiixayn ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة.
الله تبارك وتعالى وحو قري وحي قرشاء يا مقاديرتا أضوامدا كسابسن يا خلقك intuu san dhulka iyo samada abuurin konton kun oo sano ka hor ayuu wax walba qoondeeyo qoray Allah tabaaraka wa taala waxyaalaha la qoray waxa kamida marka risiqa kamida adoonku intuu nool yahay ama ruuxu intuu nool yahay waxa uu helayo iyo waxa uu kasbanayo iyo waxa gacanta soo galaya iyo waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayo iyo waxa uu dhisanayo wax kasta oo ku saabsan Ilaahay tabaaraka wa taala horu qoray waxa kale oo macnaha faa'iideynaya xadiidka Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda Ahmad iyo Hakim ba soo saaray kadalika al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inna Allaha qasama baynakum akhlaqakum kama qasaba baynakum arzaqakum Ilaahay tabaaraka wa ta'ala dhaxdiina wuxuu idin qaybiyay أخلاق دينا سيدا أرساق دينا بأو إذن كو قيبي مرك إلهي با قيبي تبارك وتعالى وانا وحي إلهي قرشي ربي جان تبارك وتعالى مركو قرشي حكمة دي سوحا كمدا إنو صندتك أسمين سيسمدا الدنيا ده أو سنكوض السمين حكمة باكو جرت أنت المامي دون إن شاء الله تعالى لكن وحا إنو موقتا إنا يددكو قيبيهين مثلا وحا ذركيسا قيبتا كوباد يددكو وحويان ودد فقراء فقراء وحا لله والروحة أما ددك أن هيلي كرين وحبا ما هيستانبا قيب كم إذا مجتمعاتك وحبا عنتو ذكو ما جرتو kuwaasi fuqara la yiraahdana waa qayb labaad masaakiin baa la dhahaa kuwa hore way yara dhaaman wax waa haystaan laakiin waxay haystaan kuma filla oo baahidoodii xaajaadkooda asaasiga ah ma wada gaadhayo oo ma wada daboolayo walaadana masaakiin baa la yiraahdaa cala raajih مسكينك يا فقيرك مسكينك داما أدلة اللو دليشدنا وحا كمدا آيات ku jirta في سورة الكهف يا الله يدي تبارك وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها لمن دون شقيسة دون شقيسة ووحصو صارته ayaa waxa la leeyahay masaakiin la leeyahay marka hanti waa leeyihiin oo doon baaba u shaqeynaysa hadana maca dalika Allah wuxuu ku tilmaamay inay masaakiin yihiin sababtu waxa way doonta waxa ka soo baxayay baahidooda ma wada daboolayo marka miskiinka kaas la dhahay dadka qayb kamidana waa masaakiin oo waxay haystaan kuma filla qaybta saddexaad waa dad haysta wax ku filan oo ka badnayn hoygiisa waa haysta biilkiisana waa haysta isbitaal haduu baahdo waa haysta arad bixiisa waa haysta laakiin wax siyaado badan ma haysto in sabaahidiisa dabooli kartoon ka badnayn buu haysta qaybta waa qaybta ilaahay uu ku irsaaqay risiqa la yiraahdo kafaafka haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu iimaan iyo toosnaan uu kuugu darana waa martabada ugu fiican kafaafkaasi waana tii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ku ducaysan jiray wuxuu dhihi jiray allahumma ij'al rizqa ala muhammadin kafafa ilaahu reer muhammad waa qoysaskiisa risiqoodii arsaaqdooda waxaad ka dhigtaa wax ku filan oo ka badnayn بمعنى قرأ هذي كاب بضته وحي كام مشغولين دونتا وحي يدا كقيمة بدن آخرة هذه مستقبل كاجيو الدنيا دا كقيمة بدن بي كام مشغولين سيدا غالب كي بدن
saas daraadeed buu nabigu ku ducaysan jiray ilaahu wax ku filan oon ka badnayn reer maxamed risiqooda ka dhig xadiidkii cabdillahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim baa macnaha isaguna tilmaamaya oo nabigu yihi sal alla alay wasalam qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqannacahu allahu bima ataah waxaa liibaanay ruux islaamay oo ilaahay islaamnimo iyo diin saxa siiyey kadibna lagu irsaaqay wax ku filan kadibna intaa la siiyey lagu qanciyey oo ku qanacsan iimaan ku qabo oo qalbigiisu ku degan yahay saddexdaa qodob ruuxii helay waa liibaanay buu nabigu sal alla alay wasalam marka dadka qaybtiisa labaad waa qaybta kafaafka haysata haddii ilaahay diin iyo taaco iyo khayr ugu darana ayagaa u fiican qaybta saddexaad waa dadka haysta wax ka badan baahidooda waana dadka la yidhaahdo aqniyada ama ahriyada la yidhaahdo ayagaa haddana sii kala sarreeya oo maraatib iyo darajaad kala sarreeysa yihiin inta aada arkaysaan ee dadku u qaybsamay marka waa rabbi tabaaraka wa tacaala qaybintiisa waay rabbi baa saa u qorshay iyagu saa mayna iska dhigin laakiin rabbi baa tabaaraka wa tacaala saa ugu talagalay inay sidaa kala noqdaan su-aashu waxay tahay marka allah tabaaraka wa tacaala dadkan wax uma waayin hadduu doono rabbi tabaaraka wa tacaala kulligood wax ku filan buu wada siin lahaa maxay tahay xikmadda ku jirta in mid faqiir laga dhigo oo mid miskiin laga dhigo oo mid waxoogaa ku filan la siiyo oo mid taajir isnacay laga dhigo maxay tahay xikmadda ku jirta allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimku ku tilmaamay dad badani waxay u haystaan oo aan mas'alada fahansanayn oon dhuuxin fiqhigeedana aan la waafajinin oo dadka iska busatada ah waxay u haystaan dadka wax la siiyeyna in la jecel yahay kuwa la qadiyeyna in la nacay saxna maaha siismada iyo ku-cidhiidhiga iyo uwaasicinta iyo qadintu midna kuma tusto adduunyada in ilaahay ku jecel yahayna kuma tusto inuu ku necab yahayna kuma tusto laakiin xikmad kalea ku jirta xikmadda ku jirtaay qur-aanka kariimkii waa tilmaamo rabbigeen wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala walow basata allahu الrisqa licibaadihi labaqow fi اlأrض walakin yunazilu biqadarin ma yashaa ilaahay hadduu addoommada risiqa u wada waasicin lahaa dhulka dhexdiisay ku qooqi lahaayeen laakiin rabbi wuxuu soo dejinayaa qiyaas iyo qadar maslaxadooda iyo dantooda ku jirto haddii la wada dharjin lahaa oo sanad walba barwaaqo laga dhigi lahaa oo waxay rabaan la wada siin lahaa way qooqi lahaayeen oo way kibri lahaayeen oo way xadgudbi lahaayeen oo xakamahay goosan lahaayeen laakiin ilaahay wuxuu soo dejinayaa qiyaastaasi marka dantooda iyo maslaxadoodaa ku jirta waa idinka arkayoo sanad 2 sano markay barwaaqo noqotoba sanad abaaraa imaanaya xoogaagii la kaydsaday baa la cunayaa xoolihii qaar baa dhimanaya qaar fara badanoo waxaystay waxoogaagoodi waa burburayaan meeshan markaad joogtaan sanad baad si fiican u faa'iidaysaan gacmaha buuxsanaysaan soo ma sanadka dambena waxbaa isku dhex daadanaya meelay ka timid adigu garo haddaad lafihii celceliso waa dadaasha soo ma lafihii haddaad ku mitido sanadkaa waa dadaasha xagee ka socotaa marka rabbi baa tabaaraka wa tacaala waxaan maamulayo waa wax ka baxsan ibni aadamka awooddiisa ka baxsan waa marka rabbi tabaaraka wa tacaala ibni aadamka inuu miisaanaado oo uusan gudbin xuduudda oo uusan qooqin lianna hadduu qooqo xuduudda gudbo waxaa markaa ka dhalanaysa cuquubooyin keeni kara halaagiisa waxaa laga ilaalinayaa marka sababtii keeni lahayd halaagiisa keeni lahayd baa laga ilaalinaya xoogaa markuu joogo yaro xoogaa la siiyo oo yaro farxo barwaaqo helo maalmo uu damaashaado dhag waxoogaa dharbaaxaa loogu dhufanaya
wuu soo laabanaya marka meeshiisu ku soo noqonaya haddana waxoogaa baa la siinayaa waseetadaa loo sii dayn waa la yaro daajin markuu is yara halmaamaa haddana mid kale dhag waa lagu dhufanaya sidaasaa rabbi awsha ku wadaa tabaaraka wa tacaala xikmad weyn baana ku jirta ibni aadamka in badan oo ka mid a aynan fahmaynin ama aynan ku baraarugsanayn xikmadda labaad ee ku jirta waxay tahay qur-aankuna tilmaamay rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala warafacnaa bacdakum fawqa bacdin darajaatin liyattakhida bacdukum bacdan sukhriya waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun qaarkiin baan qaarka kale ka sarraysiinay xagga adduunyada iyo qaybinteeda qaarkiin ma sinidin qaar baa qaarka kale laga saramariyey maxaa saa loo yeelay liyattakhida bacdukum bacdan sukhriya si qaarkiin qaarka kale uu uga dhigto adeege iyo shaqaalo uga dhigto inaad isu adeegtaan ood isku xidhnaataan ood isu shaqaysaan ayaa ku jirta in laydinkala sarraysiiyo inaad isku xidhnaataan ood isu shaqaysaanna noloshiinaa ku jirta kaba soo qaad maalan haddii kulligeen ruux walba wuxuu u baahan yahay la siin lahaa shaqooyin iyo howlo fara badan oo nolosheennu aynan ka maarmin baa la waayi lahaa ciddii qaban lahayd maanta hadday dadku wada dhereegsan yihiin adiga dukaanka yaa kuu iibin laha shaqaale dukaanka kuu iibiya miyaad heli laha maya hadday dadku wada dhereegsan yihiin injineer guri kuu dhisa iyo fuundi guri kuu dhisa maadan hesheen adiga unbaa uun shaqaysan laha mid jidka kuu hagaajiya maadan hesheen mid musqusha kuu qoda maadan hesheen mid qashinkiiyo kaa qaada maadan hesheen mid jikada kuu galo raashiin kuu kariya maadan hesheen oo noloshaadu intaa miyay ka maarantaa ya soo uma baahnid wax aad kaashato oo dirsato oo kuu adeego oo shaqooyinka asaasiga kuu qabto oo ka kuu qabanaya muxuu kuugu qabanaya ma ku jecelya mise dhalashaa idinka dhaxaysa mise jannuu kugu raadsanaya maya dantiisaa kugu xidhan soo ma dantiisaa kugu xidhan dantiisaa kugu xidhan haddii lagaa xadhig furo oo isagana meeshiisa lagu dharjiyo yaa kuu shaqaynaya waa soo saas ma xikmaddaasi marka waa xikmad rabbaaniya oo cajiib ah waay ibni aadamka inuu isu baahdo waxaa ku xidhan jiritaankiisaa ku xidhan sidaas daraaddeed buu rabbi kala sarraysiiyey oo qaarna wax siiyey qaarna rabbi tabaaraka wa tacaala dhexdhexaad ka dhigay qaar sarraysiiyey qaar hoos geeyey calashaan inay muxuu ahay noloshoodu isdhammaystirto oo ay sii jirto ee adduunka sii camiraan ma jirto marka fahamka dhahaya ilaahay tabaaraka wa tacaala midka uu qadiyeyna wuu nacay midka uu wax siiyeyna wuu jecel yahay fahamkaasi sax ma ah bal waa faham darrawe rabbi tabaaraka wa tacaala wax siintiisa xikmaddaasi kama muuqato bal rabbi jacaylkiisa iyo nacaybkiisa waxaa lagu gartaa mabda'a ruuxu xambaarsan yahay caqiidadiisa suluugiisa dhaqankiisa jidka uu hayo acmaasha uu samaynayo taasaa waxay ku tustaa in ilaahay nacay iyo in ilaahay jecel yahay mabda'a uu rumaysan yahay iyo jidka uu haya kaasaa ka turjuma ma allah nacay mise allah jecel ama siismada carruurta la siinayo xoolaha la siinayo manaasibta iyo jagooyinka la siinayo adduunyadani iyadu ma aha jacaylna kuma tusto nacaybna kuma tusto ibni aadamku laakiin isaga faham xumadiisa meeshaasuu la aadi sida qur-aanka kariimka alla ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala faama alinsaanu idaa ma btalaahu rabbuhu faakramahu wanacamah fayaqulu rabbii akraman waama idaa ma btalaahu faqadara calayhi risqahu fayaqulu rabbii ahaanan ibni aadamka buu rabbi tabaaraka wa tacaala rabbigii hadduu imtixaano oo uu risiqa siiyo u waasiciyo wuxuu leeyahay rabbigay baa ii karaameeyey dooranaanahay oo waa lay doortay
dadka alla iga jeclaaday haa xagga rabbi baan dadka uga dhowahay oo maxaad uga dhowdahay lagugu doortay dee waxaan la isiiyey soo ma aragti oo carruurtan iyo muxuu ahaayey waxaanuun iga farcamay soo ma aragti oo hantidan soo ma aragti allahaa isiiyey waa ijecelyahay aakharana sidaa unbaa la ii siin doonaa haddii rabbi tabaaraka wa tacaala uu imtixaano risiqana ku cidhiidhiyana wuxuu leeyahay rabbi ahaanan rabbigay baa ii ahaanaystay alla waa lay nacay la ima rabo haa waa muxuu ahaay waxaas u daldalaya aayadda u fiirso labadaba rabbi wuxuu yidhi kan la siiyeyna waa imtixaan idaa ma btalaahu waa imtixaan kan laga qadiyeyna waa imtixaan xikmaddu waa imtixaan laakiin asagu muxuu u qaatay mid wuxuu leeyahay rabbi akraman midna wuxuu leeyahay rabbi ahaanan marka ihaanana kuma jirto ikraamna kuma jire masaladu waa masalatu libtilaa waa imtixaan rabbi tabaaraka wa tacaala kan la siiyeyna waa la imtixaani kan la qadiyeyna waa la imtixaanay xadiidkii nabiga sal alla alay wasalam ee aan muxaadarada ku bilownay xadiid cabdillahi bn mascuud ayaa qaybtiisa dambe waxay ahayd waina allaha yucطi اdunyaa wafii riwaaya yucطi اlmaal man yuxibu waman laa yuxib walaa yucطi اliimaana ila man yuxib allah tabaaraka wa tacaala xoolaha iyo adduunyada wuxuu siiyaa ruuxuu jecel yahay iyo miduusan jeclaynba iimaankase ma siiyo ciduu jecel yahay cid aan ahayn marka in lagu jecel yahay maxaa ku tusaya iimaanka iyo mabda'a iyo caqiidada iyo suluuga iyo akhlaaqda iyo jidkaad hayso kaasaa ku tusaya in lagu jecel yahay laakiin waxa lagu siinaya iyo xooluhu kuma tusaan bal marar fara badan rabbigeen tabaaraka wa tacaala lixikmatin wuxuu sameeyaa addoonkiisa mu'minka ah ayuu adduunyada ka celiyaa oo wuu ka ilaaliyaa si uusan dhibaato u gelin xadiid waxaa jira xaakim uu soo saaray oo saxiixa abu saciidna waa laga wariyaa maxamuud ibn labiidna waa laga wariyaa wuxuu leeyahay xadiidkaasi nebigu sal lla alay wasalam ina allaha la yaxmii cabdahu lmu'mina min addunyaa kamaa taxmuuna mariidakum alطacaama waasharaab ina allaha la yaxmii cabdahu lmu'mina min addunya wahuwa yuxibuhu kamaa taxmuuna mariidakum alطacaama waasharaab ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonkiisa mu'minkaa wuxuu ka ilaaliyaa adduunyada isagoo jecel alla isagoo jecel buu addoonka ka ilaaliyaa xoolaha iyo adduunyada ka ilaaliyaa sida ruuxa idinka jiran aada uga ilaalisaan cuntada iyo cabbitaanka soo ma jiro ruux xanuunsanaya oo jiran oo la yidhaahdo cuntada iyo cabbitaanka ha laga ilaaliyo maxaa yeelay cuntada iyo cabbitaanku caafimaadkiisii bay dhibayaan khatar bay ku yihiin inuu u dhintaa dhici kar sidaas daraaddeed bal ha laga ilaaliyo sida aadka idinka xanuunsanaya marmar hadday cuntadu khatar gelinayso ama cabbitaanka uu halis ku gelayo saaad uga ilaalisaan oo kale buu alla tabaaraka wa tacaala addoonka mu'minkae uu jecel yahay adduunka uga ilaaliyaa muxuu uga ilaalinayaa inuu ku fitnoobo waa laga baqi soo ma adduunyadan wax ka fiican inuu ku dhaafaa laga yaabi ilaahay maslaxadiisu marka ilaalinaya tabaaraka wa tacaala marka xikam fara badan iyo maqaasid fara badan baa ku jirta qaybtan rabbi tabaaraka wa tacaala uu sidaa wax inoogu qaybiyey ee keliyatu masaladu nacayb iyo jacayl iyo ikraam iyo ihaana ma aha xidhiidhna lama laha arrintaa iyada ah intaasi markaan intaa kaga soo gudbo oo qawaaciddaasi aan ka soo gudubno risiqa ilaahay qaybiyey ee uu bixiyey in badan oo ka mida rabbi wuxuu ku xidhay asbaab oo waxaa ku xidhan addoonku hadduu sidaa iyo sidaa yeelo risiqaa ha loo kordhiyo intaa ha la siiyo hadduu samayn waayo intaasi yaan la siinine ha laga jaro asbaab fara badanba marka waxaa jirta keenta lianna rabbi waxaa ka mida sunankiisa kowniga waxaa ka mida sunankiisa iyo qaanuunka kownka uu ku maamulo waxaa ka mida qaanuunka iyo sunnada la yidhaahdo
sunnatu الsabab wاlmusabbab shay kasta rabbi wuxuu u yeelay jid loo maro iyo sabab haddaad la timaado natiijadeedii aada helayso marka haddaad jidkeedii marto ood sababteedii la timaado rabbi tabaaraka wa tacaala musababaadkuu ku siinaya wixii ka dhalan lahaa natiijadii ka dhalan lahayd buu ku siin biidnihi laazima inuu ku siiyo laakiin biidnihi rabbi tabaaraka wa tacaala sidaasuu marka asbaabta iyo musababaadka masalada labaad risiqa sidiisaba in la raadiyo oo la dalbo oo ruuxu ilaahay arsaaqdiisa uu raadsado matlab sharci ah waa arrin shareecadu ay rabto sababtuna waxa weeye rabbigeen tabaaraka wa tacaala addoonkiisa wuxuu rabaa inuu noqdo addoon kaaftoon oo ka kaaftoon khalqiga addoon aan baryootamin oo aan shaxaatamin oo aan gacanta hoorsanin oo khalqigaa ka kaaftooma oo dadkiisa aan culays ku noqonin oo markuu ugu yaryahay lafihiisa ku filaan markuu ugu yaryahay lafihiisa ku filaan sidaas daraaddeed baa asxaabu rasuulillahi sal alla alay wasalam iyagoo jihaadaya oo dagaalamaya oo diinta wada oo waqtigooda intiisa badan uu diinta ku baxayo ayay haddana maca daalika risiqooda raadsan jireen xataa kii wax waaya oo shaqo kala waaya subaxdii intuu kaco ou duurka aado buu xaabo soo guran jiray markaasuu xaabada tunku ka keensanaya suuquu geysanayaa xaabadii waa gadanayaa waxoogaa baa ka soo gelaya qaarna waa biilanayaa qaarna wuu sadaqaysanayaa subaxda xigtana waa kalahayaa xaabuu soo guranaya soo ma marka shaqayso oo xamaalo oo dhibaatood oo noloshan iyo adaygeeda madaxa ku dir oo ha u hoggaansamin inaad noqoto daciif isaguna culays isku ah mujtamaciisa iyo dadkiisana culays ku ah shaqana ha ka dhiganin inaad dadka ibni aadamka gacantiisa waxa ku jira inaad raadiso marnaba hunguriyuusan kaa gelin maxaa yeelay sida nabigeenna ka sugan sal alla alay wasalam addoonka su-aasha badan oo dadka wax weydiista oo gacanta u hoorsada maalinta qiyaamada wuxuu imaan doonaa asagoo wejigiisa uusan cad hiliba ku oolin wejiga dhan baa la diirayaa markaasaa lafihii baa soo baxaya maxaa yeelay wejigan sharafta badan ee karaamada badan ilaahay cid aan ahayn inaad u dullayso ma aha haddaad cid weydiisanaysood u dullaynayso allah baa loo dulleeyaa laakiin khalqiga ha u dullayn saas daraaddeed baan xadiidkii qabiisa nebigu yuhi sal alla alay wasalam qabiisow su-aasha iyo waxweydiisiga dadku waa xaaraan wixii lagu helana waa xaaraan waa suxti ilaa 3 ruux mooye 3 ruuxoon yani waxa weeye duruuftu u geysay oo dantu ku kaliftay oo daruuradu ku kaliftay 3daasaa la soo reebay wixii kale waxaa la yidhi waa suxti iyo xaaraam wa maxaa la doonayaa marka ruuxu waxaa la doonayaa inuu noqdo shakhsiya muntija shakhsiya iijaabiya shakhsiye aan culays ku ahayn dadkiisa iyo mujtamaciisa ee ah mid wax soo saara wax dhaliya wax keena xamaasha beerta fasha yacni waxa warshada aadoo xamaala suuqa galo oo ganacsada yacni xoolaha raacda duurkiisa galo ilaahay risqiisa raadsada sidaasaa la doonaya yacni inuu noqdo ruux wax soo saara maxaa maqsuudku u yahay maqsuudku waxa weeyaan adduunka maanta waad ogsoon tihiin dowladaha iyo mujtamaca ay ku bato dadka shaqo la-aanta ah waxay ku tusaysaa dibdhac iyo noloshiio sii halaabaysa iyo halis bay ku tusi marba haddii dadka shaqo la-aanta iska taagtaagan ay bataan mujtamacaasi dibdhac shaki male islaamku marka waa horuu xalliyey arrintaa iyada oo u diiday dadkiisa inay noqdaan dad ama meel taagtaagan ama dadka kale waxooda ku dulnool shaqayso wax soo saar
arrintaasi marka waa mabda' ka mida mabaadi'da shareecada ka mida acmaasha ilaahay ugu jecel yahayna waxaa ka mida addoonku inuu shaqaysto wax soo saarto oo gacantiisa wuxuu kula soo baxo inuu yacni wax weeyaan uu muxuu ahaayey uu isticmaalo oo uu isku filaado oo uu dadkiisa anfaco dalkiisa anfaco qodobkaa isagaa marka waa matlab ka mida mataalibta shareecada ka mida sidaa markaynu nidhaahno jidad baa haddana shareecadii inoo tilmaantay shaqaysta markii layna yidhi shaqaysta oo ibni aadamka ilaahay wuxuu ku abuurayba ilaan wuxuu ugu talagalay inuu camiro dhulkan khaliif buu ka yahay dhulkan uu ku nool yahay maadaama uu khaliif ka yahay ilaa inta ilaahay ugu talagalay inuu adduunkani dhisnaado inuu camiraa loogu talagalay inuu dhiso oo hormariyo oo uu muxuu ahaayey yaa loogu talagalay ibni aadamka kolba dadaalkuu bixiyuuna ilaahay wuxuu ugu furayaa asraarta kownka ku jirta ilaan ikhtishaafaadkan hadda ibni aadamku uu kolba gaadhayo kolba waxbaa soo baxaya kolba waxbaa la ogaanayaa kolba sir caalamkan ku duugnayd buu ibni aadamku gaadhayaa ama ha noqoto fi majaali tibi ha noqoto ama teknolojiye kale ha noqoto maalinba waxbuu ibni aadamku soo saarayaa oo gaadhaya macnaheedu ma aha waxan inuu isagu abuurayo maaha ma keenin isagu laakiin asraar waaweyn oo kownkan ku qarsoon baa ilaahay maalinba qayb uga furayaa waxyar baa sirtaa laga siinaya dadaalka marka kolba uu dadaalo baa rabbi ku siinayaa iyo kolba asbaabta siduu u qabsado iyo jidkeeda u maro asbaabtaasi marka asbaab fara badan weeye ilaahay fadligiina waxa ah tabaaraka wa tacaala diinteenna waa diinta islaamka ma aha diinu ruhbaaniya ma aha diin suufi noqo oo duurka gal oo meelaha cidladaa intaad ka dhigato sawmacad ka dhisato meelaha uun madaxa laalaadiyo foor diin ku dhahaysa maaha waa diin ibni aadamka adduunkiisa iyo aakhiradiisa isu dheelitiraysa adduunkaagii wixii ilaahay kuu qoray qaado ha halmaamin intifaacso dhanka kalena aakhiradaadii oo adduunkaaga ka muhiimsan ha dayicin waa diin isu dheelitiraysa markaasay haddana adduunyadii lafteedii iyo aakhiradiiba waxay ina siinaysaa jidadkaan u mari lahay tala bixin baa lagu siinaya adduun kasabkiisa ma rabtaa risiq barakaysan ma rabtaa risiq waasaca ma rabtaa risiq aad ku degta ma rabtaa jidkiisii waaka halkaa mar halkaana ka leexo sidaa u dhaqan waxaa lagu siinayaa talooyin aakhare ma rabtaa janno ma rabtaa ilaahay ridihiisa ma rabtaa inaad daawato ma rabtaa rabbigaa wejigiisa tabaaraka wa tacaala cadaab inaad ka badbaadiya cadho ilaahay ma rabtaa jidkaa mar oo halkaa ka gudub meeshaana iska ilaali talooyin baa lagu siinaya talooyinkaa markii lagu siiyana adaa khiyaarka laguu daynaya soo ma markii jidka laguu muujiyo waxaa lagu leeyahay aday kuu taalla marka ama qaado ama ha qaadanin warku waa cadi waxba laguu qarin maayo sidaas daraaddeed shareecadeennu waxyaalaha ay tala bixinta badan ka bixisa waxaa ka mid ah ruuxu siduu ku heli lahaa risiq waasic ah oo xalaal ah oo dayib ah oo mubaarak ah talooyinkay bixisa waxaa ka mid a asbaabta iyo jidadka loo maro risiqa xalaasha ah kow waxaa ka mid ah alistiqaama calaa manhaji illahi tabaaraka wa tacaala ilaahay dariiqiisaoo lagu tooso furaha ugu muhiimsan oo ilaahay khasnadihiisa lagu furto waa kaa inaad dariiqii rabbi tabaaraka wa tacaala aada ku toosto oo diintiisa ilaaliso ood waajibaadka gudato waa ta ugu muhiimsan waa wixii ilaahay kaa xarimayna ka fogaato qur-aanka kariimku rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala qodobkaaso waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ruuxii alla ka baq oo dariiqiisa ku toos oo waajibaadka guta oo xaaraanta iska ilaaliya rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu siinayaa dhibaatada ku dhacdiyo culays kastoo qabsada jidkuu kaga bixi lahaa waa la siinaya
waxaa kaloo uu ka irsaaqayaa alla meel uusan malaysanaynin. adiga waxaad rumaysan tahay naftu orod bay kugu aamintaa, laakiin rabbigaa tabaaraka wa tacaala meelo kaleetoona kulaba ahayn waxbaa kaa soo gelaya yuu irsaaqadda kaa siinaya. waa goorma markaad jidkiisa ku toosto. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذي طريقة كتوسي لهايين وحانو ورابين لهين روب دبعوا وين روب هي دبعوا وين. هذي روب كالصمد يمادنوا إلهي الصمد وفرنا نول كان بركات كي سفريا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هدي أمده إنه الريب على الله يا مجتمعاتك دتكي هوري هدي أي اسكدر لهايين إيمان إيه الله كعبس والطريق الرب أي كتوس لهايين الله وحليه وحان أفر لهايين بركات كالسمدة إيه كرنول كاللبضة بوان أفر لهايين ويسبينيين markaasaanu ciqaabnay buu Alle tabaaraka wa tacaala. marka iimaan iyo alla ka cabsi iyo dariiq toosan ilaahay daacadiisa lagu hagaago waa qodobka ugu muhiimsan qodobada lagu gaaro risiq waasic oo xalaal lagu gaaro. adiga miyay kula tahay inaad suuqa gashood orodo mooyaane laakiin salaada aad tukanaysaad risiq ku heli wali ma kula noqoto ya salaada waxaynu ugu tala gashanahay inuu aakhira ajir kaga hela mooyee laakiin adduunkaabad wax ku heliba ina lama ah sooma saas daraadeed baa jadwalkeena waxay kaga qoran tahay meesha ugu dambaysa. haddaan ognahay inay iyaduba furihii tahay shaki male xagga horaan gelin lahay sooma xagga hore baan ku qori lahay. allah tabaaraka wa tacaala marka asbaabta uu inoo sheegayo wa huwa al-khabiiru al-aliim taasaa ka mid وهو العليم الخبير. وحكمده أسبابته أيضا التوكل على الله تبارك وتعالى. إن هذا إلهي تلسارته ومحيط إلهي تلسارته مع القوضاء إن هذا أسبابتين التي مادو أسبابته وحا كرلنا ينتيجدنا إلهي أدي صدقك الصورات ساسا لنا هذا توكلك وأخذ الأسباب مع الثقة بالله تبارك وتعالى في المسببات والنتائج. سبب كي أدوحن كوجار الهيد كان شيد كمر لكن وحن إناد هلي إناد هلين ربي قعنتي سيكوتشر تايو كوكل صنو ودا إسكا. وأنا قاعدة هروس وشيخنايو سنة الأسباب والمسببات بالله. وأنا شيء يعني وحويان رنتي أن رزق كلية كسب سنة. هذا دونيس مثلاً عرور أدرت. هنا عرور لشهادة دونيس. هنا الإسلام جورستو أدجوري أدمحوا سرقتان أو مركز كولانتان أو سيدا أد المكورات الصومة. هذا ترى هذا كورا الإسلام يكذب كذا يرفعت كذا يجوري كذا وحده أنا مجله هيه ساج كسف كورام فريسنا هيه. وأنا الدعاء سنة هي إلهه الماء يسي وصعونيزا أرني علوجو إن المسألة علوجو سين ماي صف كوران فري سنة يا وأنا الدعاء سنة هي صوبتي الماء اللي جوه لهانا ما مرة هيو واللوجو أصنته ورحت صوبتي لا يمو رزق بعد رادين يسا كسب بعد ربطة حلال بعد ربطة ربح بعد ربطة شيت كمر ذلك كذي لا يمو ساس دردت بحديث النبي وحوها بورك لأمتي في بكورها وفي لفظ اللهم بارك لأمتي في بكورها ومضى إذا وحى اللو بركي كاللهادة أما إله أبركي ومضى إذا كاللهادة أبركي صباح هذه مركو انتو تكذو مارتي أو حزبي جيسا أخرستو أذكارتي صداميستو وحوغايس جيسا ومحوها ميل سارو ayuu markaa kala hayaa xagee buu kala hayaa suuq uu kala hayaa beertu uu kala hayaa xoolihii buu dareerinayaa xamaalkii buu kala hayaa kala haad buu galayaa hadaadan kala haada iyo orodkaas aadan galin sababtii maadan la iimaan marka horta sababtii keen oo dadaalkii la iimow
qodobka labaadi dadaalkaaga waxa aad rabto in lagu siiyo iyo waxaad ku raadinayso adiga dadaalkaaga kuma xidhna ilaahay bay u taala suusaas ma oo imisa ruux baa suuqa intay galaan had iyo habeenba taagan haddana ku soo bixila nin baa jaamacad u galay dugsi hoosuu soo maray oo dugsi dhaxuu maray oo dugsi saruu maray oo jaamacad buu ka baxay oo bacda aljaamica master buu maray oo PhD buu maray waxaasoo dhan wuxuu ku takhasusay sida risiq loo helo sooma inta markuu keenay oo shahaadaadkii ugu sarreeyay uu watay buu suuqa aado isii bal wax raadi mise wuxuu ka badin la yahay biilkiisa sooma mid baa geel ka soo orday tuulo iyo geel buu ka soo orday soo ordahayay Captain buu soo istaagay Captain buu soo istaagay meel kale biyo isma soo marinin markiiba suuqu orday waxbuu isku xidhxidhay xagga fahmuu keenay waaba kaba wax yar kadibna ninkii waaba taajirba faradu sidhe soo wax jira ma wax jira waa meesha waxaad garanaysaa marka in waxan la bixiyo lagu siiyo waa hawl ilaahay u taala sooma laakiin adiga maxaa laga rabaa dadaalkii la imo حديث النبي وحوها صلوات ربي وسلام عليه حديث عمر لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا أطلع سارا لهيدين الله سيد الشمبروه أطلع سارتانه كله وإذن إرساق لها سيد الشمبرها وإرساقه كله شمبرت الصباح دي بيك الله ذا أيضا قاعد galabtiina way soo noqotaa ayadoo kaliyuhu fidsan yihiin oo dibirsan oo dheregsan waxna meel ma dhigato soo saasba kayd male store wax uma yaalaan account wax uma yaalaan subaxda hore markuu waagu bariyo iftiinka ugu horeeya kacaysa ama caleen ha soo daaqdo ama muxuu ahaay midhaha soo daaqdo ama cayaan ha soo cunto galabtii waxay soo noqonayaan iyadoo dibirsan rabbigeed bay ku kalsoonto waxay og tahay markay kala hayso u fiirso lama dhihin ayadoo buulkeedii ku jirta buu ilaahay wax u keenay laakiin maxaa ka hormaray wax siinta kalahaad iyo orod iyo duulid iyo shaqo iyo waqti hawl bay qabatay hawshay qabatay kadib baa waxa ka dhasho ilaahay ku siiyay midhahan ku siiyay marka ilaahay tala saaro ku kalsoonow sababtiina la imo أسباب الرزق كانت كم تهاي أو كم دي هاي كالهاد هاي سلقني أنا السيحني عاجسين محوها هاي الصباح ظهري الصباح ظهري إنك الصور روح أوجه الريا سوق أوجه الريا أوجه الجلا وحقال لقد ديريي هذا مع ذلك الرزق الصباح ظهر اللي قيمين ريها كسيحن رزق الصباح ظهر اللي قيمين كسيحن هريكت والشغل هذا قلب أسبابته وحكم ده الاستغفار والتوبة إن إلهي تبارك وتعالى وحي خلدت قشي وقصوا نقطه دم بدافنا ويديسته عيل أنت بدن واحد حرمان ككينا يرزق إنه كوع عريريمه أنت بدن واحد سبب وذنوبته ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحا أركيسان رزق عريريقه iyo cunto yarida iyo roobka la waayayo iyo dalaggiyo ba'ay iyo abaaraha iyo rafaadka iyo colaadaha iyo cudurrada iyo masaa'ibtani waxa asal u ah ibni aadamka dunuubtiisa adigana khaas ahaantaada dhibka ku haysa waxa asal u ah dunuubtaada muxuu yahay xalku marka rabbiga u soo noqo waxaad badisaa noloshaada inaad ilaahay dambi dhaaf weydiiso astaghfirullah 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 نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قوم كيسي مركو كورمي وحوري فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ربي يقول تلك يقوم كي وحن كويري إلهي دم بداف ويديست وتوبت كينا وصنق
haddaad towbad keentaan oo ilaahay dembi dhaaf weydiisataan yursili الsamaa'a calaykum midraara samadii buu idiin dirahayaa oo idiin fasaxayaa ayadoo dararsan oo dhibco waaweyn iyo roob badan idin siinaysa wayumdidkum biamwaalin wabaniin wuxuu idiin siyaadinayaa xoolo iyo carruurba wayajcal lakum anhaaran wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara wuxuu alla idiin yeelayaa aseendooyin beero waaweyn iyo webiyaal iyo ila qulqulahaya intaasoo dhan maxaad ku helaysaan istakfiruu rabbakum istakfiruu rabbakum meelo badan baa qur-aanka kariimkii ku tilmaamayaa dembi dhaaf weydiisiga addoonku hadduu badiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nolol wanaagsan buu adduunka noolayn risiq badanna ilaahay waa u furayaa marka adoo dukaankaaga jooga adoo jidka maraya meel kastoo joogto gogoshaada saaran waxaad badisaa istikfaarta badi astaqfirullah iyo towbadda ha halmaamin asbaabta ugu muhiimsanee risiqa lagu waasiciyay ka mid tahay waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah silatu raxim walixsaan ila alaqaarib inaad qaraabadaada xidhiidhiso oo raximkaaga aada xidhiidhiso oo aad ka warhayso dadka ku xiga xigtadaada ah aada wada dhalateen qaraabada tihiin dhanka hooye kaa soo gelaya ama dhanka aabba kaa imaanaya ama ma xididnimo ku imaanaya dadka xigtadaada ah inaad u naxariisato oo aada wax siiso oo gacantaadu u furnaato xadiidka fi saxiix nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam man axaba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aaharihi falyasil raximahu buu nebi uri sal lay slam ruuxii jecel in risiqa loo fidiyo raadkiisana loo dibdhigo ha xidhiidhiyo qaraabadiisa raadkiisa loo dibdhigo maxaa laga wadaa cimrigiisa loo barakeeyo ama cimrigiisa loo dheereeyo haddaad rabto in cimriga laguu barakeeyo ama laguu dheereeyo iyo risiqaaga in ilaahay kuu waasiciyo dadka qaraabadaada iyo raximkaaga xidhiidhi oo gacantaadu ha u furaato eedooyinka adeerada abtiyaasha iyo habaryaraha ilmaadeerada ilaa aakhirih walaalaha waalidiin iska badaa carruurtaadiiyo waxay sii dhaleen qaraabada soke dadkaa u roonow allana tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ciddii ku xidhiidhisa qaraabooy raximow ciddii ku xidhiidhisa anna waan xidhiidhin ciddii ku goysana anna waan goyn ilaahay ballantaasuu siiye tabaaraka wa tacaala marka dadkaa ehelkaaga ah ka warhay oo wax sii oo gacantaada haw furaato xataa aad tabar yaraatid laakiin tabaryaridu macnaheedu ma aha in aad tidhaahdo maya intani anigaba igama go'daba war ma ahe intan aad siinayso wax ku deeqaad ku heli tanaaba jidkii aad wax ku heli lahayd ah sidaas daraaddeed dadkaa qaraabada ha loo roonaado kolba ruuxu wuxuu heli karo khaasatan darafkan hadda aan ku jirno iyo xaaladdan hadda aan ku jirno waa xaala istinaa'iya waa xaalad waddankii burburay oo ummaddii qaxday oo dadkii in badan gaajaysan yihiin oo abaaro u baaba'ayaan xilligani waa ka sii daran tahay inaad marka dadka ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo sokeeyahaaga aada u gacan furnaato oo aada xidhiidhiso taasi waa asbaabta ilahay risiqa ku waasiciyo waalcagsu bilcagsi haddaad kuwaa halmaanto uun adiga iyo kistaada aad dhahdo adiga iyo kistaada bas haddaad tidhaahdana ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kaa qaadanayaa waxoogaaga ama kuuma barakaynayo waa lagugu ciqaabayo waad ku guban qodobka xiga waxaa ka mid ah oo ka mid ah asbaabta risiqa lagu waasiciyo alixsaan ila aducafaa dadka tabarta daran ee mujtamaca ka mid a danleyda ah masaakiinta ah fuqarada ah dadka naafada ah dadka iska tabarta daran ee mujtamaca inaad u naxariisato ayaga inaad duca ka raadiso maxaa yeele nabigeena wuxu uhi sal lla alay wasalam hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum wardadow risiqan iyo nasriga iyo guusha ma wax kalaa laydinku siinayaa ducafadiinna iyo kuwiina tabarta daran sababtood mooye waxaad risiqa ku helaysaan
ee gaalada ilaahay guusha idinka siinayo wax kale ma ahe waa kuwan tabarta daran ducadooda iyo ikhlaaskooda waa marka dadka tabarta daran naafada dadka barlaatiga dadka dhulka yaala dadka caruurta badan haysta agoonta masaakiinta dadka noocaas oo kale waa yeelka dadkaas la raadsada waa suuq laga ganacsado waa doqoni ma garatay waa in badan oo idin kamid waxa taqaanaan inta irid la furo waxoogaa in la dhigto kadibna custom lagu suga meeshaas sooma intaas taqaanaan laakiin iridaha idin ka maqan baa waxay tahay war mid miskiina intaad raadiso xaaladu ka jajaban tahay oo waxoogaa siiso soo duceede sooma ducada uu kugu soo halgaado waxa laga yaabaa cimrigaaga waxaadan filan in Ilaahay kugu furo tabaaraka wa tacaala sooma waa meelaha doqoni ma garatahay oo waxa ka xuluulaysto ka shaqeysta dad khaas oo Ilaahayna wax badan ugu furay tabaaraka wa tacaala marka dadka tawarta daran ducadooda iyo ikhlaaskooda wax badan baa Ilaahay dadka ku siiya tabaaraka wa tacaala waxa kamida asbaabta iyada ah inaad ducaysato oo Ilaahay barido tabaaraka wa tacaala لأن خسندها الرب تبارك وتعالى وحيالها لغفر وحا كمدا دعاء كمدا خاصة حالها هي مناسبات كدعاء الله أقبلون للسوء لنين ومثلا آذانك يا أقيمات أنت ودحي سوك له هبينك جلينك الضم بسدح ميلود لو ميلود مركي تكتو صمدوا فرنتا حلياس مركز سفرته صعوتتها حالها نوعا سوكلتا iyo xaalada kale waalidiinta oo kale waalidka inaad tagto tiraahdo u baari noqoto iyo soo duceey oo waalidku ku soo duceeyaan ducadu marka waa qodob asaasi ah oo mataalibta lagu gaaro waxa doonaysa aakhiriya adduunba lagu gaaro saas daradeed ducadii nabigeena waxa kamid ah sallallahu alayhi wasallam allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala ilaah waxaan ku weydiisanayaa ilmi nafi'a ilmul kitab wa sunnah waxaan ku weydiisanayaa rabbi oo rizq wanaagsan waxaan ku weydiisanayaa amal la aqbalo marka inaad rabbiga barido tabaaraka wa tacaala in ilaahay ka saaro ciriiriga iyo faqriga bal nabigeenu ilaahay wuxuu ka magan gali jiray faqriga iyo sharkiisa gaajada fa innahu bisa dajiic wax kula seexdo gogosha kula seexda gaaja ugu daran sooma ilaahu magan baan kaaga ahay buu dhihi jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ilaahay bariyadiisa inaad badiso oo gacmaha u hoorsato oo u tadarrucdo iridaha khayrkiisa risqiga xalaasha in ilaahay ku furo ayadana waa sabab kale oo asbaabta kamid oo dadka intooda badan ay moog yihiin iyadana macna waxa kamid ah asbaabta risqiga lagu furo ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu wax kugu siyaadinayo al-iktifaa bil halal 'an al-haram inaad ku kaaftoonto xalaasha oo xaaraanta iska ilaaliso maxaa yeelay haddaad dariiq xun oo khaldan wax ku raadiso ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa ka dhalanayso inuu kugu ciriiriyo hadduu ku siiyana waxaan baraka lahayn baa lagu siinaa marka xalaasha ku dadaal xalaal miiro xaaraantan faraha badanna ka tag sida markaad samayso ilaahay waxoogaga uu ku siiyo waa ku barakeynaya wax badanna waa ku siinaya khaasatan ribada iyo wixii la mid sida rabbi quraanka ku sheegay yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ilaahay ribada waa baabi'iya sadaqadana waa kobciya oo wuu koriya oo wuu badiya xoolaha marka xaaraanta ka ilaali ribadu haba badnaatee yaraan bay ku dambayn buu nabiga sallallahu alayhi wasallam xoolo xaaraan ah waad ku guban hatta haday badan yihiin ku dagimaysa oo ku xasili maysa oo baraka male oo adoo haystaad faqiirta Soomaaliya kuwa Soomaaliya milyaneer ah oo isnacay xoolahoodu isnacay oo marka intaad u tagto aad tiraado war ruux muslima gaajeysan aniyo xogaaya ala alkiisa iyo rafaadka ka muuqda iyo ilxumadiisa adaaba u nixiba Sooma adaaba u nixi warsee wax ka yihiin waxa meesha yaalaan wax barakaysan ahayn sooma mid waxaad arkaysaa waxoogaa yar ilaahay siiyey haddana suu u barakaysan yahay iyo faraxa iyo siduu u qaabilayo baahida iyo siduu uga jawaabayo aad la yaabayso
xogaagiisa barakaysan sooma marka rabbi inuu risiqa ku barakeeyo kuna waasiciyo waxa asbaabteeda kamida inaad xalaasha kaliya ku kaaftoonto ganacsigaaga laalaabka ka dayso oo beenta ka dayso oo khiyaanada ka dayso oo wax isdoomarinta ka dayso oo aad muxuu ahaayay khalqiga aad xoolihiisa si khaldan ku raadinaysa ka dayso jidka tooska mar wixii ilaahay kugu siiyaa barakaysa sharcigaagana ilaahay tabaaraka wa tacaala kuu soo deji waxa kamida asbaabta risiqa lagu waasiciyo inaad xoolaha sadaqada ka bixisood kula dadaasho sadaqada xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam maalin kasta oo waa bariyo laba malag baa soo dega labada malag mid kamida waa ducaynaya wuxuu leeyahay allahumma a'ti munfiqan khalafa ilaahu ki wax baxsaday badal khayr qabasi midka kalena wuu habaarayaa oo wuxuu leeyahay allahumma a'ti mumsikan talafa ilaahu ki xoolaha cishaday oo haystay oo bixin waayay baaba'si malaa'ikta maalin walba marka si aad ducada malaga uga qayb gasho maalin walba inaad wax baxsan karto isku day haba yaraato sooba caada haddaad ka dhigato waa kastoo kuu barya inaad wax uga baxsato konton muxuu ahay ran 100 ran xataa wax kale haddaad weydo muxuu ahay 20 ran 10 ran haddaad caadaysato inaad wax baxsato ducada malaga maalin walba ha seegin waa sooma xoolaha wax laga bixiyo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kuugu furayaa irida fara badan hadda maalan dukaama idin furan dukaamada waxaad u furateen custom baad rabtaan sooma dadka jidka marahaye adeeg doonka inuu kugu soo leexdo waxa ay jeebkooda ku jira aad ka daadsato baad dukaamada u furateen customka waxa idin soo leexin ma taqaana sadaqada ku soo leexin adoomada qalbigoodu ilaahay gacantiisa ku jira sooma isaga meeshuu doonana u leexiya meeshuu doonana ka leexiya xadiidkii fi sahih ku yimid baa ku tusiyo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay nin saxaabada kamida wuxuu yiri yani nin saxaabada kamida qisada wuxuu leeyahay asagoo meel cidla ah jooga ayaa daruur baa soo kormartay daruurtii marka dhexdeedu wuxuu ka maqlay sawd baxaya oo dhahaya beerta hebel waraabi waa daruurta dhexdeeda daruurtii waxoogaa bay soo durugtay way soo socotay meel bay biyihii ku sii daysay biyaheedii oo idil hal keli ah ama hal tog aba intuu ururiyay ayuu siduu u sii waday buu hal beer oo beerihii ka mid ku shubay ninkii sawdka maqlahayay daruurtii agtiisay ku da'day oo uu soo raacay oo meeshii buu yimid oo biyihii oo qulqulahayo hal meel u socdo arkay oo uu iska daba galay hadduu beerihii tagay wuxuu u tagay nin majaraf haysta oo muxuu ahaayay biyihii beertiisa ku duduwahayay biyihiina meel kaleba kuma leexan ninka beertiisa basay ku urureen asagiina waa ku duduwanahaya markaas wuxuu warniyo magaca war maxaad iga rabtaa buu magacayga maxaad iga rabtaa warniyo sukay sheego magaca maxaad ka rabtaa magacayga wuxuu warniyo daruurta biyaheedii ay kuwan yihiin ayaan intayna diin dhexdeeda waxaan ka maqlay hebel beertiisa waraabi eniyo magaca hebel baa la dhahaa buu mise waaba magacii daruurta dhexdeeda uu ka maqlay markaasuu warniyo tanaa jirtee bal ii warrano maxaad samaysaa wuxuu yidhi hadday arrintu sidaas tahay waxaan sameeyaa buu beertu markay ii soo go'do 3 qaybood baan u qaybiyaa dalagii ii soo go'ay qayb wuxuu yidhi beertan dib ugu celiyaa oon ku beeraa qaybta labaadna biil baan ka dhigtaa qaybta saddexaadna waan sadaqaystaa sirta ma fahanti customka in la soo leexiyo allihii daruurta soo leexiyay ma custom baa caajis gelinayo inuu soo leexiyo ya waa sir idinka maqan way xoolaha markaad sadaqada ku badiso wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu waxaan tajribo ku aragnay dadka wax bixiya ayaa ugu taajirsan dadka balad ugu fiirso meelaha la isugu yimaado xoolaha lagu ururinayo ninka xoolaha ugu badan bixiya ayaa maalinta dambe markaad weydiiso tira war ma kaanu isqaameen
ما وحبن هلي بوله وحن عادي أهين إلهي باب الله قاضي رسول كيس عدي صلوات ربي وسلام عليه مرك الرزق وحياله لجوا واسعية وحكم ذا إن هذا ربك تبارك وتعالى التي جاريسته وأت صدقة بديسه سكذا واجب كإسكاب دايد وحكم ذا أسباب الرزق لجوا واسعية إن أتكشكر ذا إله النعمة ديس وحي إلهي كسيه هيا هذا هبط ناده إن أتكشكر أو قلبك يقول كوي هذا الحمد لله عربك أتكشكر ذا وحقو كسيين عضو استعماشه ميل أورالكيه إلا شكرك واساس وحوجاج أو كسيه هدات كالشكر ده واحد سوق يسوى السيادة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هدات شكر دان والدين كردين هدات سكفر دان والشكرين ويدان عذاب كي جوا درين يهب الله تبارك وتعالى مركز الشكر والقصيد شكركم حوي هاي الضوء ماذا قارب إلهي وحوجا يرنتوسيه بوحى الله يا بيسا سيد قلبي جيسا يقوى انتو أقر سيه الله سي أف كيسا يعرب كيسا انت وحى كسعد الحمد لله والورن الحمد لله ورحال كاغو سوي الحمد لله ورمعاد كبر الحمد لله ورمالمها سوق وحوية بالورن الحمد لله صومه الحمد لله وروالو قد عاية بالورن الحمد لله الحمد لله ربي تبارك وتعالى مركز كل شكر ذا أفئي أدني قلبي با ربي تبارك وتعالى شك ماله إردها خيرك الرزق واسع وكفر يا بإذن الله تبارك وتعالى وحكم إذا أسبابتها أيضا وإن شاء الله تعالى ربينا نقودا بيسيو ترك الإسراف وتبذير الأموال حولها مرك إلهي كسيو إن هذا ما ملك وضح اللينين وآد reerkaaga iyo caruurtaada iyo baahidaada inta wixii ka siyaadsan in aadan ku fataalin in aadan xoolaha ku fataalin ilaan dadka qaar waxaa jira say uba roo yihiin oo u quman yihiin waxoogaa maalintay helaan baa waxay bilaabaan baab cusub iyo irid cusub iyo shaqo cusub ninkii hebel ahaa ma baha ninkan markaasuu wuxuu bilaabayaa xoolihii inuu ku israafo wuxuu iibsanayaa baabuurka adduunka u qaalisan war maxaa ka rabtaa wuxuu gelayaa guri aan caadiba ahayn xoolihii isticmaalkiisii siyaaduu noqonaya waa daadaadina marka waa kala firfidhina miis buu soo fadhiisanayaa cunto wuxuu dalbanayaa arrada ka badan maxaa mallay ah maxaa digaag ah maxaa hilib xoolaada maxaa bariisa maxaa baasta waxbaa meeshan isku qurbadan wax yar buu ka taataabanaya waana ka dhaqaaqaya war maxaad u dalbanaysa waa fataalnimada xoolii buu ku fataalaya xoolaha waxaa la doonayaa rabbi markuu ku siiyo israafka ka ilaali ciyaartana ka ilaali risiqaaga sax ilaahay markuu adoonkiisa wax siiyo wuxuu jecel yahay wuxuu siiyay inuu ka muuqdo oo labiskaaga ka muuqdo oo noloshaada ka muuqdo oo ay masaakiintu ku soo aado sooma ilaa ninka waxa istaa la yaqaana sooma ruuxa waxa istaa waxa la rabaa inay nicmadu ka muuqato oo kii baahnaa uu yiraahdo wallahi waa ladan sooma ilaa sideedaba hadiise laakiin adigoo wax haysta aad sida masaakiinta u dhaqanto واستراحة يا لوجسو آدي فلا يكون هيستا مركا نعمة ربها كام وقته لكنها إسراف أحد قد بن نلش كنترول يينا أيضو كوضنن يينا كولتين قضب كاسنا وقضب أساسي هو أو إن يعني ما رئيسه أو إداريسه أو ماموشه مصروفات كاجا يوحى عاد بحين يسوي قاب كدو تصرف يسوه يينا كينين حد قدب يحدود دينات اللوضو تاسي وحي كينيسا إنا وحي كورور سنادا لكن حقا وحا كاسو قلبيشي كبا سوقات طبان كن مصروف كاغونا والله باتن كن وحي إلهي كسيي بقدال بات كسي دادينيس وحي إلهي كسيي بقدال بات كسي دادين سيوا وحولا كوغو ديغميان marka waxa la rabaa dhankaana in laga dadaalo israafka xoolaha laga ilaaliyo sida quraanka kariimka tabaaraka wa taala in badan aayaadka rabbi ku tilmaamay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wala tubadhir tabdhira
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. waxa weeye asbaabtu way fara badan tahay الزواج لإرادة العفاف inuu ruuxu guursado asagoo doonaya inuu ku dhowrsado oo uu zina iyo faaxisho iyo xumaan isaga ilaaliyo xadiidkii nabiga wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam ثلاث حق على الله عونهم صدح إلهي با حق إساقر لغي إنو كالميني وحكم ذا الناكح يريد العفاف روح قرسنا يا أساقو جددي سؤايتهاي إنو إسئلاليو إلهي تبارك وتعالى با رزق أفريا أو كالميني marka guurka inta badan dadku way ka baqaan oo waxay yiraahdaan ama aad ku ceyrtowdaa oo waxoogaaga aad kaaga burburaa laakiin haddii niyadaadu fiicanta oo ay tahay diintaada iyo sharafkaaga iyo aakhiradaada ku dhowrso oo ku asturan xumaanna isaga ilaali إلهي تبارك وتعالى أسبابته ورزق كفر أدونك وكالمية كمت هذين نيادو أي في عنت قل واحد عكرته إن أديك بوحي إلهي كسيو كوغوت لك قليبا وإسكيرا مركو ربا لكن إسلانتن وحوغا بدن إن إلهي وغوت لك قليبا عكرت وحوغا جيدي لو غوت لك قليبا مركا أديك اللقوسو ديبو إلا هذا شقينا هي صوما rag waxa jiro aad u badan ayagoo fuqara waxba haysan intay guursadeen ilaahay uu nirido u furay soo saasba haad u badan sidaas daraadeed guurka ujeedadiisu ay tahay aad ku ilaashatid oo ku dhowrsatid oo kadalika aad ummadii nabiga sallallahu alayhi wasallam badisid oo caruur khayr qabta dhashid ilaahay tabaaraka wa taala iyadana waxay kamid tahay asbaabta uu arsaaqada ku furo رزقنا كواسعيو انت كدب وحان دونيا لبا قضب انان كغبخو كلمه قضب ككوباد كسب كاد ku jirtaan iyo shaqada aad ku jirtaan waa inaysan idin kallumin oo idin halmaansiinin waxay iyada ka muhiimsanaa iyo aakhiradiin oo isu dheelitirtaan dalabka adduunyada iyo dalabka aakhirada si kale hadaan u dhaho in aakhiradiina ay midigta idin ku jirto adduunkaagana wixii ilaahay kaaga qorayna aad bidixda ku qabsato waxa nacas ah oo aqli darra iyo nacasnimo haysa ninka mid dhamaanaysa baaba'aysa waqtigiisa oo dhan intuu ku bixiyo tii jiraysay halmaamaya xadiidka Hamdala al-Asadi fi sahih Muslim حنظلة وحوين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه مركز وحول أبو بكر حنظلة ومنافق وبي سجى سكوت هذان حنظلة أتقاني منافق بالنقضي ورسيت وحكايين ونيوم حيو بعد شيء والمنافق بنا هيبور وما حد عاي النبي مركز لا تشوقنا ونوعدين يو وحنو شيء يو واحد مدابو للجنة النار تيني هرتنا ذا كم مقدان markaanu agtiisa ka tagno adduunyadii dhaxgallo caruurtii iyo xaasaskii iyo beerihii iyo adduunyadii markaan dhaxgalana wax badan baan halmaamayna qalbiga nagu waa isbedelaya sidaas daraadeed munaafiqiin aan ahay baan isu malayn Abu Bakar baa wuxuu ku yiri war dhibkaasi aniga laftayda waa i haystaa falniyo ina keen soo inaga wayna ma haysto saajidka marka la fadhiyo oo la iswacdinayo waayadaha la akhrinayo waa la jidbaysan soo روح مدحو لحيا قلبي سوحبا اسك بدلي آخر أمو قد تجني النار لنعا سؤالي لكن مركز يريد كدكتو دكانك انتاد قشو دور قور اي ناقها قاوانكو هور مران وحيو نوابا صوبا بدل ما اسبدلي
أبو بكر وحوري ورنب كاسي واشراي بلنا كان نبي يوتكن صلى الله عليه وسلم مركز وحوري حنظلة يا رسول الله نافق حنظلة رسول قال يا حنظلة ومنافق وبي سبحان الله ما تقول ورمحاد لا ضانيه سوى جاي رسول قال منافق وبي سوى حجران مركان كل شيء نود نوانين يسون نوعدين يسون كل جاي سنة إنه حال كنا جوا سيدم مركان كاتك نور الدنيا دي نحكي لنا سيدم والنقضي مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بانكون دارته marka aad ila joogtaan sida aad tihiin hadda daa'imi lahaydeen malaa'ikta jidadka iyo gogashiinaba idinku salaami lahayd laakiin ma suuroobi karto ibn aadam baatiin adduunyada waad joogtaan waadna ku dhex abuurantiin oo ku ibtilaysantiin oo sida aad tahay masaajidka markaad ku jirto waliga ma ahaan kartide oo waad ku qasban tahay reerkii iyo caruurtii oo waad ku qasban tahay tabaci oo suuqi waad ku qasban tahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam walakin saa'atan wa saa'a ولكن ساعة وساعة ساعة هي ساعة معناها ما فهمتين حلقة وضع ساعة أدون كاغا عرور تادا رير كاغا بير تادا دكان كاغا تبع عاغا وقت هلكا قلي ساعة صوحة دينا ساعة حكتنا آخر دادا قبر كاغا قيامة دادا شنة دادا هلكا كاقل waqtigaaga saa u qaybi dukaanku sidoo u furayo oo dhex taagantaa markii lagu dhawaaqo hayya ala as-salah hayya ala al-falah خلاص tii kala timid marka soo xid sooma wala isu yeeray oo yaa loo yeeray war liibaanta u kaalay oo salaada u kaalay yaa la leeyahay soo adiga ma ruuxa loo yeeray marka saacatan wa saaca saacadna adduunyadaadna saacadna aakhirada ilaahi fadligiisuna waxa weeye waqtiga uu ina siiyay labadaba uu qaybsami karaa روح هدو سمي إدارة الوقت ووقت جيس التحكمه وقت آخردي سي شقف عن أوقف صدنا وهلي الدنيا دي سوقت وكوكس بدنا وهلي وقت جيس سينو صنضيعين واه صوما مركا وقل يا رب التلمام تبارك وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار مساجد وحى عمرة وإلهي كحص الرق رقصوا أين مشغولين إن تجارة باعي الشراء وسن مشغولين أو سن كمشغولين إلهي ذكر جيس صلاة أول لها قاتشيو سكدوا الله بحيو وحي كبقيان مال أي قلوب تسرقي دونتو وحالكو هلس نقون دونو مال كاسي وديار قروبيان saas daraaddeed ganacsigooda iyo dukaamadooda iyo beerahooda iyo mashquulka adduunyadu kama mashquuliyo waajibaadkoodii diiniga ah qodobkaasi waa qodob asaasi ah oo adduunyada ku dhex lumina khaasatan meeshan hadda aad joogtaan meel la isku halmaami karo ma bahaba waaba meel geeridiiba qarka saaran tahay sooma waaba meel aan caadi ahayn ruuxu markuu meel yara aamina yara joogo oo nabad ah oo isleeyahay wallahi inta badan inaad badbaadayso u badan tahay haduu xogaa inuu isdhiira dhigto waa wax suuroobi karaba laakiin maanta mid baa la soo dilay maanta mid baa la soo dhaawacay maanta mid baa halis ku fakaday maanta warkuba waa kamba sooma marka xaaladda aad ku jirtaan oo kale waxay keenaysaa in aakhiro loo bato oo tiraado war kulli waa la dhimanayaa bal khaatumado ورسوا عررنا اللي يدين ككروا ماشي واحد وين بتكون هاي ستان وحضور لمن يسان وحسهلا ما هي لكن وحويا وحلو بهاي ورخاتمة ده حاجاتية أو دين كل إنتا أو خاتمة وناكسن كل إنتا أو هذا إلهي يقان ندمو هذا عبادة السنة يدمو هذا منكر كي معصية كفوق دمو أنت شقي سنة إنسان قضب كلام يدين كدري شقة أنت تكون شرتان نية ده حاجاتية إنما الأعمال بالنيات niyadaada waxaad ka dhigtaa aad ku u shaqaysanayso ee aad xalaasha u raadinayso inaad ku asturanto caruurtaada iyo ehelkaaga aad ku kaafidad waajibka ku gudato saka iyo sadaqa ka baxsato ummadaada ku anfacdo diintaada ku garab istaagto niyad wanaagsan oo noocaas hadaad ku shaqaysato intaad shaqada ku jirtaba ajir baa ku socda سرتانا قبصدا إني أحتسب في نومتي كما أحتسب قومتي
hurdadayda ajir baan ka rabaa buu sida istaagga markaan taagnahayba aan ajir ugu raadinayo sidaas daraaddeed mucaamalaadka caadiga ee adduunyo rag baa ajir ka kasbanaya oo ka guranaya labadiina dukaanka dhex taagan 8 saac 9 saac 10 saac dukaanka dhex taagan ninna ajir baa u socda ninna waxba uma socdo maxaa kala saaraya waxaa kala saaraya niyada kala saaraysa wa fi bud'i ahadikum sadaqa bu nabi sallallahu alayhi wasallam ninkiin xubinkiisa taranka ajir buu ka heli inaad reerkaaga u tagto shahwada ku gudato ajir baad ka heli markaas saxaabadu waxay yiraahdeen ya rasuulallah oo ma intaanu shahwada nadii ku gudano oo kulaylkiina hayay aan isaga reebno ayaanu haddana ajir ka helaynaa waaba waxa la heli karin markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam bal ka warraba hadduu meel xaaraan ah ku guto dambi ma ka soo raacaya haaba yiraahdeen waxaa la mid ah hadduu meel xalaal ku gutana ajir buu ka helayaa adiga waligaa reerkaaga waxoogaa uun shahwada ku guda mooye laakiin ajir ka raadi ma istiri wali ajir ka raadiya ma idin ah malaha dad badani kumaba soo dhicinba meeshana ajir laga helaa صواب ورميه أجرك وفربدين فضلك ربنا وواسع ganacsiga iyo beerta iyo reerka iyo waxan oo dhan ajir baa tubane laakiin niyada hagaajiya niyada saxa khayr badan baa ku jira adduunkaaga adoo helaya baa dhanka kale aakhiradaada insha Allah ta'ala ku hagaagaysa talooyinkaasi waa talooyinka quraanka iyo sunnadu bixinayaan ilaahina waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa ta'ala inuu nagu anfaco wixii sawaab iyo khayra wixii shar iyo xumaanana ilaahay tabaaraka wa ta'ala iyo khaladana ilaahay noo dhaafo ilaahay waxaan weydiisanaynaa khaatumo wanaagsan waxaan haysanana ilaahay noo barakeeyo wixii naga maqan oo khayrana ilaahay nasiyo ilaahay tabaaraka wa ta'ala dunyada sharkeeda Allah naga xifdiyo khayrkeedana Allah nasiyo khaatumadana Allah noo hagaajiyo jazakumullahu khayran wa baraka fiikum adinku dheereeyay raali hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إلهي سبحانه وتعالى شيخ ميزان حسنات شيخ بشارات محاضرة أسئلة إنك الإلهي هاي نقوى انفعه وهي قد يكون انتفاع مهمة وحاوي إن أكون انتفاع شيخ وحبنا سليم مفاتيح اللي فرياشي هي أسرات أرزاقنا مفاتيح الله عنها شيخ وحاوي قولنا هذا عينه استعمالها هذا جزاكم الله خيرا صدق مسافر سؤال قاقام وماشي كتابة وعشان أفعل سنة الفجوة محتاج منها يروح لي مصوري هذه الدكان كفر وفراء قلت كان مالك الأمتان دكان كفر وصدع حوالها عن كوحر وكتب على حرام يدخل بسم الله الرحمن الرحيم dagaalada daaqilka ah ee gudaha ka jira ayay ka mid warkan hayo inaad dukaamada iska gara furtaan oo kadibna isku laysaan horta muxuu ahaayey dukaanka furashadiisa ruux inuu dukaan furto asal ahaan waa shay shareecadu u gasho meeshuu ka furanayana asal ahaan waa inay u banaan tahay risqiqa rabbina tabaaraka wa tacaala dukaan lagaa kala furay ugu seegi maayo haddii 100 dukaan lagaa kala furo wax ilaahay kuu qoray qaadan maayaan wixii ilaahay kuu qoray kulli muday dukaamada soo wada qaabaan ayay ku yihiin وفي الله يكون قريب للدكتور كهرباء تجارب يا رجل يا جماعة قريب إلى ترى هذا الماء سحمة أيوة على التهاي يكمل أبي روح مصر كورال كان أي حقيقة هاي إنه ضرر كسر جاري مركز محور لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر هذه وجود حقيقي يجب
هذا يصير مسألة تاعي رزق إلهي يعني هو الجوال كوكو صنايو يكاد هيكون قرن قوانين أكتر هكسر قوانين يورشر معها وحنا كمان ديدي كرتي كمان مرحين كرتي هذه إذا يوقف فرنت هاي كاجين الوسط نحكيلين حطوا حتى على كم طيب هدو كون دوانيو رزق إلهي بالسوي هذا ركيل إلهي بالسويسة كالسوني أقالوا بركة إلهي وقف السيء كون قريب وارجس فهذا بين المحاضرات تصور بالله رزق إلهي وقف قريب سماد يقول كما أنت الله أقول الكهر كنتم كل أصر الكهر بيصير قريب وقفوا ضيسمين وحسنا سوكلا عندنا هالطلاب قالوا إننا هنكون هحسكي هفويني ولا الكاوي ولا الكاوي إسكاشرة هذه موجودة والله ما يزال والله الله يا ما تدرس كذا قطع السوق المتان يا هاي موجود سؤال دويسو رزق حق يعني واحد كمدا حتى مسلمين تا سنن كقرآن كسنة الإمامين واحد كمدا يعني سنة الإيثار حتى ولا الكائن أقول دورته وبحنا يجي أقول دورته والسبب هو الربحان هنا ومبدأ آبو في المقرار سيطرة رمتاسي ورمتاسة لا ينتظر يسكون لينيو والنوع حسدا وشرا شرعه ومبنانا وحاكم شرا النوع يقين ضرر إيمان حمي أبا كنشرته رمتا إيضا مركا إلي يوفو قادا في عالم هنا إسكاشتان وإسوسو دواتان وذكر عصتان إسكاشتان وسيداسا صحة لكن يوفو يهيسو دوالي حدودين كنشرتناو نما قرقا يسير دكان وفرين لوكيشن دكان وفرين أدوين هذا اللوكيشن كان لا بس وكيل كون ده فوق الشر وحوجا جاي قصة صح ما سلدا مسألة قضوية وحقلنا وروح وحديدة هي التجارب كفرنا يا وحقلنا وروح وحديدة هي التجارب هي محل كسر دوانا يعني كاسر وحوجا عقيدة وكير على يسنتو سي وحي حسب كان عقيدة رمضان الإيمان رمضان تلسك دايو وحي لا يكون قوي ميسن إن شاء الله تعالى وقلت كان هذه لقاء كرفرو كل سوري أبقى إن شاء الله تعالى والله يتوب ninkan wuxuu leeyahay ilaahay dartii baan ku jecel lahay marka labaad qofka inaan dhaho ii duceyn ma bannaan tahay qofkaas oo wax iga joogo ama iga maqnaayo الله يجعله روح نور وأدوه الجوجة إلى الإيد عاتنا الله صح غير بنات النبي صلوات الله والسلام عليه عمر بن الخطاب وحده يقول لي أضاء أكثر منك الإله ويس ضل قوله أنت رجل جليل الله أكون تعيب النبي صلى الله عليه وسلم حديث رمضان مرة مسألة بصارة مركب روح النار إنه كنت تعيب ودي تعيب تلاحظه وهو مشروع لكن واحد الإيدين هو الروح بنتين وقبر الجلين إلى تلاحظ الشيخ ولو في سوء وتبقوا مقلين هذه ما بيسكلم والله أما بيت كام مقل إلى الاستلاحظ السنة الصومالية تشوف أمكية تشوف وباشا يقول مقلها وتلاحظ الشيخ ولو في سوء وتبقوا مقلين سكنين لكن هدول نوري هي توصل على ولا كذا أما كلام تشوفه أما تلقاه ممكن توديك تعرف هذا صح وأنا توصل كالنوعية اللي سمعناه نعم كان لو عليه الشيخ إلهي درتي بقوة إن شاء الله وحان كاحصل يا إلى أجيب عليه إلهي مراد كاغا حسن وحان ربطو إلهي ما قرنا يا حسود كاغا خير الله أبوها في تشيو كي قام بها يقامانت المسلمين تا يقول مراد في سقاس كالله يريد أن يعطيه قرطاني ويجيب عين هذا الكيان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عيات القرآن فقال
yidhi ummaddayda waxaa ka mida 70,000 oo jannada geli doona iyagoon xisaab iyo cadaab midna marin 70,000 markuu sheegay ayaa nin la yidhaahdo Cukaasha baa istaago wuxuu rasuulka ilaahayow inuu ilaahay igu daro kuwaas ii weydii gawajaanis wog markaasuu nabigu wuxuu sal alay wasalam kamid baa tahay kuwa imid baa qorantay mid kale soo istaago wuxuu rasuul ilaah anigana Cukaasha kaaga horreeyey buu kamid matid haddii la dhaho waa dhib kamid baa tahay haddii la dhahana imid baa qorantay sidaas daraadeed xikmadda nebiga wuxuu yidhi warniyo waa lagaaga horreeyey buu ku xidhay marka insha allahu tacaala dhammaanteed maqsuudkeena iyo muraadkeena khayrka iyo meesha aan ka dhibanahay ilaahay tabaaraka watacala ninka allah inaga qaado baaraka fiik ninkana wuxuu leeyahay dadka qaarkood xoogaa dhaqan xumaa ka muuqata iyo tasarruf xumo badan oo gaaladu ay ku arkayaan dadka muslimiinta waxaa kamid a suu-ul mandar inuu macnaha ruuxa aragiisu xun yahay si xun uu macnaha dharkiisu si wanaagsan uga labisna ama waa wasaqaysan yahay inuusan cadaynin oo xaqaaiqi afkiisu wasaqaysan yahay iyo dabeeca xumo iyo waxyaaba noocaas oo kaleeto dadka maxaa ku nasaaxin إن الله جميل يحب الجمال إلهي وقرصني هاي ورحنا وجعله ونبي مسينا هذا الكايرين ربكو يمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جنة كلمة يقول قلبي إيسا يكون شرط وحي يرغب كيلا من الصحابة كم إذا يستوعب رسول إلهه midka yow wuxuu jecel yahay in dharkiisuna quruxsan yahay kabihiisuna quruxsan yahay wakibir baa markaasaa nabi muxamed sal alay slam ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa quruxsan yahay quruxdana waa jecel nadaafadu waa asal ka mida usuusha shareecada sidaas daraadeed baa maalinkii 5 goor inaan weysaysano waa nooc nadaafada ka mida mar alla markii saxaro ama kaadi timaado inaan istijaysano soo nadaafad ma ummadda muslimka ah wax ka nadaafad badan ma jiro sooma waa ummadda keliya ee markii waxyaabaha jidhka ka soo baxa ay ka soo baxdo biyo isaga dhaqdo soo saas ma inta kale meelaha xataa jidhka laabatooyinkiisa inta badan wasaqdu fuusho awaamiir baa ka timid ciddida jara oo filfilada timaha ka gooya oo timaha kumeerka ku yaalla ee xubinka taranka ka koreeya xiira waxaas oo dhan maxaa loo leeyahy calashaani waa nadaafad sooma marka ummaddani waa ummad nadaafadeed ummad wasaq ma ah cadayga nabigu yuri sal alla alay wasalam haddaanay ka baqaynin ummadaydu inay ku dhibaatooto salaad kasta markay tukanayaan iyo wayse kasta waxaan ku waajibin lahaa inay cadaydaan laakiin inay ku dhiboodaan markayaan mar walba cadaygaasay wada jirin marka nadaafadu waa shicaarka diinteenna quruxdu waa jacayl ilaahay baa jecel oo diinteenna waxay ka mid tahay usuusheeday ka mid tahay sidaas daraaddeed inaad miisaal iyo tusaale fiican noqotaan baa lahaa mujtamacaad baad u timaadeen dad baad u timaadeen waa gaalo waa diin la-aan dad soo qaxay oo soo cararay oo dalkoodii dhibaata kasoo eridibatay waa u timaadeen waxaad xambaarsan tihiin risaalo iyo mabda idinka laydinka dhex akrisanay haddii foolxumo iyo wasakh iyo ur iyo wax uun aan munaasib ahayn dadkii idinkala kulmaan waaba diin uraysaa iyo diintooda iyagaa uraya la dhihi maayo laakiin maxaa la dhihi diintoodaa uraysa wayaa diintaada qaadanaya haddii akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo been iyo isdabamarin iyo dhac iyo khiyaano iyo aad dadka kula dhaqantaan diintiinay ka go-an tahay sooma mar kuwaayaa diintooda qaadanaya waa beenaalayaa khaa'imiin wa sidaas daraaddeed in badan dhib baan u geysanaynaa diinteena markaynu iskhilaafsannahay oo qoorta isugu jirno
وينجي يرين إلا كاب هاي السوق عليه أنت يرين كلام الله وحبيسينا هذه المستعوية إلهي ما نكون هذه picture intellect بالحين يا picture intellect بالمناصيننا إنك كرامة اللي شرف تاني الدين تاني يضل كأن كل ولا صامين خلاص marka inta dukaamada iyo tijaarada iyo ganacsiga aan dhaqaaqmo ku faxayno adiga kulama aha adiga u baasameynaya islaam laakiin waxaad ogaanaysaa ummad dhan baad qayb ka tahay diin iyo mabda iyo akhlaaq iyo dhaqan leh dib bay ugu noqonaysaa marka waxaa loo baahan yahay inaan noqono muraayad fiican inaan noqono tusaale fiican ummaddu akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda ku islaamto wadamada muslimiinta kuwa ugu badan muslimiintu waddan ay degaan waxaa ugu badan baa la yidhaahdaa oo hal dawlada hoos yimaada waxaa ugu badan indonesia sooma indonesia ugu badan waddanka indonesia muslimiintu dagaal iyo jihaad kubayna furanin diinta waxaa lagu gaadhsiiyey ganacsato u tagtay inay ka ganacsato markay ganacsigii u tageenna dadkii ay dhaqan wanaagsan iyo akhlaaq ka arkeen sidaasay diinta kusoo galeen dadkani diinta iyo wataan iyo akhlaaqdooda wax la dayn kara ma aha indonesia saasay ku islaamay philippine saasay ku islaamay aasiyada fog iyo in badan oo ka mida islaamku saasuu ku gaadhay haddii ilaahay dhulkan idin keenay dadka tusa waxay diinteeda ku jeclaadaan oo magac iyo dalkeeni iyo dhaqankeeni ku jeclaadaan uga taga insha allahu tacala laakiin xumaaya laydinka arkino ku talagal inaad diin iyo ummad iyo dalba matalayso adoo keliya reer biiran Soomaali qabiil meesha nin ka joogo ya waa joogaa meeshay laba nin ka joogaana waaba ku idiyey meesha aad nin ku joogtaan islaamkii baa jooga Soomaali baa jooga laakiin mushkiladana haysata wax weeye waxaan caado ka dhiganay Soomaalidu meeshuu maalin maro wuxuu ku talagelayaa dib dambe inaan looga dabamarin هما ما عليك بيت وحق تمرين عدة ما يسوس صوبر يكون كتير شيء هذا وكذا كاس عم بدل إن شاء الله تعالى ونظافة يومناك يخرج يخلاق يسوي هذا الشيء أيضا إن شاء الله تعالى دعوة صامد ومسوي جزاك الله خير. سؤال شوط بيسان وحولي يعني بين الكلاب الدكان ما لقى كلها بين الكلاب الدكان ما لقى كلها سؤال واحد لو كان هذه كلاب في الدكان كلاب هو الكلاب هذا هو الدكان كان عليه خمرة هو خمرة وماشي هذا نوع هذه الدكان كان عليه لكن لو أنت أسئلة ذهين لك مكيس حلقة يا الله سؤال شو إنه يكتم وإشكال مكيد كلاب كتبت الجلي أيها وحيجي بسنة السلاح صحيح مشكلة مالك هذيك الكلاب كلهم هبوك عالمين. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is